magacaygu waa Siciid Cabdi Faarax waxaan ka tirsanahay Runcad waxaan wakiil ka ahay gudoomiyaha waxaan caawa ku faraxsanahay inaan ka qayb galay shir saddex geesood ah oo isugu yimaadeen xukuumadda Puntland Tibek iyo ururada siyaasadda sagaalka arrintaas farxadda gelisay waxaa ka mid ah rag horena waa ka soo sheekeeyeen waxyaalihii la soo qaaday dhammaan in la isku afgartay halkaana ay ka muuqatay saddexdaas madax oo meesha fadhiday ay diyaar u yihiin inay hogaamiyaan doorashada Puntland taas shacbi weynahana waa u sheegaynaa dadka xisbiga ku xiranna waa u sheegaynaa in arrintaasi ay dhaqaaqday ballanqaadkeedana uu fuliyey oo madaxweynuhu ha ugu horeysa maxkamaddii dastuuriga ahaa dhaqaale uu ku baaqay in ururada uu ku taakuleeyo iyo in la wada shaqeeyo ilaa uu soo gaarsiiyey heer ah ururada uu kalsoonina siiyo uu yidhi wax alla wixii qalad ah ama wixii dastuurka ama wixii qaldan ka soo shaqeeya oo keena taas marka waxaan caddaynaynaa in dowladdan ay ka go-an tahay in demoqrasiyadda loo gudbo waana rajaynaynaa ay fusho qof walba Soomaaliya oo reer Puntlandna waxaan ka codsanaynaa in uu arrinta dhinaciisa qabto oo aan nina lagu hadlayn waa guul ay dadku gaarayso waxaa laga raysanayaa 66dii wadaar xaaj khaliif weeye gudoomiyaha urur siyaasadeedka mideeye haddii aan warbixin yar oo kooban ka bixiyo kulankii caawa madaxtooyada Puntland ay ku yeesheen ururada siyaasadda ee sagaalka ah guddiga doorashooyinka ee Tibek iyo xubno wasiir ah oo ka tirsan golaha xukuumadda ka tirsan uu hogaaminayo madaxweynuhu run ahaantii kulankaasi kulan wuxuu ahaa lagaga arrinsanayay waxyaabihii la soo maray ee doorashooyinka saddexda degmo ee Qardho Eyl iyo Ufayn laga soo maray si looga faa'iideysto waxyaalihii la soo maray ama caqabadihii jiray kuwa dambe oo imaan doona 37 degmo ahna looga digtoonaado waxaad moodaysaa iyadoo markeedii hore ay jireen waxyaalo yaryar oo kala aragti duwanaansho ah caawa markii la wada hadlay in waxyaalo fara badan la isu soo dhaweeyay waxyaabaha ay soo jeediyeen ururadu oo ay tabanayeen madaxweynuhu runtii uu si fiican uga jawaabay ballanqaadkeediina uu sameeyay waxaan sugaynaa hawshaas inay u dhamaato sidii ballanqaadku ahaa waxa kale oo lagu ballamay waxyaalaha dhiman oo u baahan dhamaystirkana in waqtiyada soo socda la qabto si fiican loo dhamaystiro daraasad fiican lagu sameeyo si team workana lagu shaqeeyo oo saddexda dhinac oo guddida doorashada xukuumadda iyo ururada siyaasaddu ay si wada jir u shaqeeyaan arrintaas ayaa la gabagabeeyay waxaan filaynaa ballanqaadyada la sameeyay inay sidooda u fulaan baan rajaynaynaa haddii rabbi idmo arrintaasi haddii ay fushana wax fara badan baa laga faa'iideeyaa intaas baan warkayga ku gabagabeynayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin magacaygu waa Xuseen Musan Nuur waxaan ka mid ahay mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka Sincad Sinaan iyo Cadaalad waxaan caawa halkan runta uga qayb galnay xarunta madaxtooyada Puntland shir aad iyo muhiim u ah oo saddex geesood ahaa waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha dowladda Puntland shirka muhiimka ah caawa isugu yeeray ururada siyaasadda dood fiican iskaashi fiican baa laga galay caqabadaha hortaagan barnaamijka demoqrasiyadda waxaan ku faraxsanahay uguna mahadnaqaynaa dowladda hogaaminaya madaxweynuhu inay arrintaas si fiican uga garaabeen cabashadii ururada ama aragtida ururada ka qabeen ayna miiska soo dhigeen in arrimaha la xalliyo waxaan ku faraxsanahay madaxweynuhu inuu mandate ururada u siiyey uu yiri wixii caqabad ku ah doorashooyinka ururada soo saxan wixii dowladda looga baahan yahay facilitation bay noqonaysaa arrinta haddii laga dhabeeyo runtii waa state fiican oo horey u sii waday barnaamijka demoqrasiyadda waxaan ku faraxsanahay madaxweynuhu arrintii ballan qaaday caawa maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah waxaan baarlamaanka Puntland ugu baaqaynaa inaysan caqabad ku noqon barnaamijka demoqrasiyadda waxaan baarlamaanka Puntland ugu baaqaynaa inaysan taariikh xun ka tagin waxaan ugu baaqaynaa inay arrinta maxkamadda madaxweynuhu ka soo dhiso sida ugu dhaqsaha badan ee horumariyaan waxay muhiim u tahay geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland baarlamaanka marka aan maantay aragtida shacabka iyo ururada siyaasaddu waa inay maxkamadda meel marisaan idinka shacabka ka timaadeen waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaad arrintaasna baaqaya ka jawaabi doontaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saaxiibada ururada siyaasadda aragtida soo bandhigay
waxaan rajeynaynaa barnaamijka muqdisho inuu guuleysto waxaan rajeynaynaa in hore loo socdo waxaan aaminsanahay puntland inaysan istaahilin meesha hadda joogto inay sii joogto loo baahay in hore looga sii dhaqaaqo waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno barnaamijka siduu ku guuleysan lahaa waxaan diyaar u nahay wixii caqabado jira inaan isla saxno waxaan diyaar u nahay in miiska la isugu wada yimaado aad iyo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xogayaha guud ee siyaasadeedka ka Ilyas Cusmaan Lugator runtii caawa madashan iyo kulankan muhiimka ahaa oo lagu dardargelinaya howlaha ururada iyo doorashooyinka qof iyo cod oo halka kan uu caawa shir gudoomiyay ama maartay ku casumay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Said Abdullahi Dani iyo qaybo xukuumadda kamida oo ay hogaaminayeen wasiirka arrimaha gudaha guddiga TPEG iyo sagaalka urur siyaasadeed ee ka jira dowladda Puntland runtii kulankan waxa kulan la isku dhaafsaday xogo ay ugu horeeyeen inay TPEG la wadaageen ilaa hadda meesha wax marayaan madaxweynaha oo runtii isna soo bandhigay warbixin iyo himilooyinka iyo ilaa hadda meesha wax marayaan iyo inaan dowladdu maaragtay ay ka go'anta waxba aysan kala harayn hanaankan isagoo runtii ururada la wadaagay inay dowladdu dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan iyo garab ahaanba ay garab taagi doonto halkan kaga dhawaaqay caawa 10,000 oo u horeeyay iyo bil walba kab $3,000 runtii doodihii iyo tala wadaagii ururada siyaasiga ah ee saaxiibaday iyo TPEG iyo madaxweynaha iyo dowladdu caawa halka ku yeesheen wuxuu ahaa mid hoosta lagaga xariiqay in si isku mid ah hanaankan loo daadihiyo meesha uu marayana niyad sami badan lagu muujiyay inta ka dambeysana maaragtay in wada shaqayn iyo tala wadaag iyo maaragtay dardar in la geliyo dhinaca qolada dhinaceeda ay qabato maaragtay lagu kabay marka waxa kulan aad iyo aad u muhiim ah iyadoo runtii madaxweynuhu uu yahay kulankii saddexaad horeyna ay u jiri jireen kulamo badan oo TPEG iyo ururada ka dhaxayn jiray waxaan isleeyahay waxaa hoos laga xariiqay wada shaqayntii ugu dambeysay iyo hanaankan oo niyad wanaag badan laga muujiyay in dhexda loo wada xidho wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim magacaygu Axmed Saahid siyaasadda mustaqbal caawa waxaan ka soo qayb galnay kulan sharafeed uu madaxweynuhu Puntland ugu yeeray ururada siyaasadda Puntland TPEG iyo golaha xukuumadda qayb ka mid ah kulankaas oo lagu qaadaa dhigay caqabaadka iyo waxyaalihii laga bartay doorashadii la soo dhaafay aragtida iyada urur siyaasadeedka mustaqbal ahaan runtii wax badan oo aanu qabnay oo dooda ahaa oo ahayd in wax la saxo oo ugu horeysa maxkamadihii dastuuriga iyo maxkamaddii sare in la dhiso ay ugu muhiimsaneed ayaa caawa halkaan madaxweynuhu ku ballan qaaday taasina waxay caddaynaya marag u tahay ka go'naanshaha madaxweyne Said Abdullahi Dani ee barnaamijkan maaragtay hirgelintiisa arrintaasina arrin bogaadi mudan weeye sidoo kale aan caawa hoosta ka xariiqnay siyaasiyiinta reer Puntland ee kala duwan ee meelaha kala duwan ka soo qaylinaya inay ku biiraan ururada siyaasadda ee Puntland laysan siyaasadeedna u soo qaataan siyaasadda darweyne ka shaqeeyaan lagana guuray ma garanaysaa tii soo jireenka ahayd oo ay yaqaaneen marka niman badan oo laga tagay calculationkii siyaasadda ay garanayeen waxaan leenahay saaxiibayaal ku soo dhawaada mid cusub ku soo dhawaada inaynu maaragtay xukunka u celino bulshada ku soo dhawaada in garsoorka bulshada inoo noqdaan aad iyo aad baa mahadsantihiin magacaygu waa Jaamac Maxamed Xarsi gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ururka shaqaalaha runtii halkan waxaa ka dhacay kulan muhiim ah oo madaxweynuhu isugu yeeray ururada siyaasadda Puntland taasoo ay uga arrinsanayeen qaabkii runtii barnaamijkii hore looga guuri lahaa barnaamijka qof iyo cod uu wadanku ku tallaabsan lahaa taasoo runtii aanu aad u soo dhaweynayno runtii aan aad ugu faraxsannahay wuxuu ahaa kulan muhiim ah isxog waraysi wanaagsan talooyin wanaagsan la isku soo qaatay la isxog waraystay runtii aad baan ugu faraxsannahay runtii waana soo dhaweynaynaa in kulamadan oo kale maaragtay ay isku arkeen madaxweynaha iyo ururada siyaasadda Puntland runtii aad baan ugu faraxsanahay ka urur ahaana runtii aad baan u soo dhaweynaynaa maadaama wadanku u guurayo nidaamka xisbiyada badan manfood oo laga guurayo barnaamijkii hore ee xisbi nidaamkii 60 ahaa runtii aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay waana waxa kaliya ee bulshada Puntland ay doonayso inay higsato oo ay ku faanto in laga guuro barnaamijkii hore runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha markii aanu aragtiyo badan isla wadaagnay aad baan ugu qaraacnay ra'yiyada iyo maaragtay fikradu noo soo jeediyay annaguna aan la wadaagnay aad baan noo mahadsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد أحمد حسن قدومي كحجين كأورور سياسات كيفية عاوة وحن هالكن كلن كلية لاني مدحوينها دولة بنتلان وداني سعيد عبد الله الدني iyo qayb ka mid ah golihiisa wasiirada sidoo kale waxa halkan joogtay caawa ururka
guddiga doorashada TPEC. kulankaas saddex geesoodka ah waxaa lagu gorfeeyey arrimaha doorashooyinka golaha deegaanka ee soo socda. waxaa laga jawaabay su-aalo fara badan oo ka yimid dhinaca ururada siyaasadda. waxaa madaxweynuhu warbixin ka bixiyey ka go-naanshaha xukuumadda ee ku aadan doorashooyinka. sidoo kale waxaan dhegeysanay warbixin ay TPEC kaga warbixisay meesha ay wax u marayaan. dhammaan wuxuu kulankani ahaa kulan niyad wanaaga. waxaana ugu muhiimsanaa oo caawa ka soo baxay waxay ahayd in arrintii caqabada weyn ku ahayd doorashada oo ahayd maxkamadda dastuuriga iyo maxkamadda sare dhismaheeda in caawa madaxweynuhu ballan qaaday. arrintaasi arrin shacabka iyo ururadaba macno weyn ugu fadhida weeyaan. waxaan rajeynaynaa in madaxweynuhu sida uu u ballan qaaday u fuliyo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan ahay guddoomiyaha urur siyaasadeedka dhalinyarada. magacaygu waa cabdiraxmaan muumin saalax. caawa kulankii ka dhacay madaxtooyada puntland wuxuu kulmiyey actriskii barnaamijka geedi socodka dimuqraasiyaashinka oo ka koobnaa ururadii siyaasadda, dowladdii iyo guddigii ku-meel gaarka ahaa ee doorashooyinka puntland. waxayna ahayd in la turxaan bixiyo qaabka geedi socodka uu noqonayo iyadoo la iska wareysanayo waxyaalihii hore u dhacay. geedi socodka suu u socon lahaa la isla turxaan bixinayo. waxaan la isla qaatay markasta inay dood wadaag lahaadaan, doodaha kalena ay sii socdaan. wixii u baahan xalna markasta lagu dhaafo qaab dood wadaaga. horumarna sidaa lagaga gaaro. tabashadana waxa weeye si wada jirta loo xaliyo.